Assalaamu calaykum asxaabta janalka ku xiran soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daadaa. Muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa taariikhda dhabta ah ee Cabdiraxmaan Qaazi oo ka mid ah dagaalyahanadii ugu caansanaa uguna geesisanaa ee soo mara boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Haddaba saan u bilowno muuqaalkan, fadlan janalka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, muuqaalka haddaad ka heshayna like saar. Mahadsanid. sida laga soo xigtay taariikhyahanadii Cusmaaniyiinta, Cabdiraxmaan Qaazi wuxuu ahaa abaanduule dagaal oo lafdhabar u ahaa ciidamadii Cusmaaniyiinta. Sidoo kale wuxuu door muhiim ah ka soo qaatay aasaaskii boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Cabdiraxmaan Qaazi ayaa la aaminsan yahay inuu dhashay dhammaadkii qarnigii 12aad, balse lama oga halka uu ku dhashay. Waxaa la rumaysan yahay inuu ahaa dagaalyahan caan ah oo noolaa xilliyadii Ertugrul Qaazi iyo wiilkiisa Cusmaan Qaazi, iyo weliba Cusmaan wiilkiisa Orqaan Qaazi. Wuxuu ahaa mid ka mid ah saaxiibada ugu dhow Ertugrul Qaazi, wuxuuna la galay dagaallo badan oo ay guul weyn ka gaareen. Geeridii Ertugrul Qaazi kadib, Cabdiraxmaan wuxuu garab istaagay Ertugrul Qaazi wiilkiisa Cusmaan Qaazi, wuxuuna goobjoog u ahaa aasaaskii iyo soo bixitaankii boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Xitaa xilligii dowladdii Cusmaan wiilkiisa Orqaan Qaazi wuu noolaa, wuxuuna ka mid ahaa dagaalyahanadii ugu caansanaa ee boqortooyadii Cusmaaniyiinta tiirarka u ahaa, wuxuuna magaciisa meel fiican kaga jiraa liiska halyeeyadii ugu caansanaa ee soo maray boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Cabdiraxmaan Qaazi wuxuu door muhiim ah ka ciyaaray aasaaskii boqortooyadii Cusmaaniyiinta, wuxuuna galay dagaallo badan oo uu guul weyn ka soo hooyay. 1328 Orqaan Qaazi wuxuu Cabdiraxmaan Qaazi u diray inuu la wareego qalcadda Aydos. Qalcadda Aydos sidoo kale loo yaqaano iridda Qusdandiiniya ama albaabka magaalada Istaanbul. Qalcadda Aydos waxaa la dhisay qarniyadii 11aad iyo 12aad oo ahayd xilligii Roomaanka bari. Cabdiraxmaan Qaazi wuxuu isku diyaariyey furashadii qalcaddii Aydos. Wuxuu hareereeyey qalcaddii Aydos, wuxuuna adeegsaday xeeladiisii ugu fiicnayd. Ugu dambeyntiina wuu qabsaday, wuxuuna gaaray guul taariikhi ah. qalcaddii Aydos wuxuu taariikhyahan Dr. Khaliil Inaaljig uu ku qeexay inay tahay meeshii uu ka bilowday dagaalkii lagu furtay magaalada Istaanbul ama Qusdandiiniya ee uu hogaamiye ka ahaa Suldaan Maxamed Al-Faatix. Taariikhyahanada Cusmaaniyiinta waxay sheegaan in amiirad ay ka caawisay ciidamadii Cusmaaniyiinta qabsashadii qalcadda Aydos, kadibna amiiraddaas waxay isfahmeen Cabdiraxmaan Qaazi. Ugu dambeyntiina wuu guursaday. Boqorkii Qusdandiiniya markuu arkay in lala wareegay qalcaddii Aydos, ayuu dareemay inay khatar ku jirto nafsadiisa, wuxuuna weerar culus ku qaaday ciidamadii Cusmaaniyiinta. Cabdiraxmaan Qaazi si geesinimo leh ayuu ula dagaalamay boqorkii Qusdandiiniya iyo ciidamadiisa, wuxuuna ku qasbay inay dib u laabtaan. Dagaalyahan Cabdiraxmaan Qaazi keliya dagaalyahan geesi ah ma uusan ahayn, sidoo kale wuxuu ahaa qof naxariis badan oo samafale ah. Taariikhda ayaana muujinaysa in naxariistiisa iyo shaqadiisa samafalka ah darteed in badan oo ka mid ah dadkii deegaankiisa degganaa ay ku qaateen diinta Islaamka. Cabdiraxmaan Qaazi wuxuu dhintay sanadkii 1329 xilligii dowladdii Orqaan Qaazi, wuxuuna geeriyooday sanad kadib qabsashadiisii qalcadda Aydos. Waxaa lagu aasay magaalada Erzurum ee dalka Turkiga, laakiin markii dambe ayaa xabaal sharafeed looga sameeyey bannaanka xabaalaha Ertugrul Qaazi, halkaas oo ay ku aasan yihiin dagaalyahano badan oo ka mid ah dagaalyahanadii ugu caansanaa ee soo mara boqortooyadii Cusmaaniyiinta. daawade janalka haddaad ku cusub tahay subscribe saar, gambaleelkana furo. Mahadsanid.